wafdi ballaaran oo ka kooban musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolada saaxil iyo togdheer oo ay wehelinayaan madax dhaqameed cuqaal salaadiin iyo waxgarad ayaa kormeer ku tegay deegaano ka tirsan gobolka daadmadheedh kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen deegaanada harashiikh gudubi raydab khaatumo mulaaxo jeeyalaaye boodhley iyo deegaano kale ujeedada kormeerka ayaa waxa uu daaranaa sidii bulshada deegaanadaasi loogu wacyigelin lahaa qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka Somaliland oo la filayo inay dalka ka dhacaan sanadka soo aadan ee 2021 deegaanadaasi ay marayeen wafdigan oo ka koobnaa musharaxiin iyo cuqaal ayaa waxa si diiran ugu soo dhaweeyay bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada wafdigu marayay odayaasha salaadiinta haweenka iyo waxgaradka deegaanadaas ayaa taageero u muujiyay musharaxiinta u kala sharaxan golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee gobolada saaxil iyo togdheer halkan waxaanu ku maraynaa marka hore magacii guud Muuse Cabdalle iyo musharaxiintii gobolka saaxil iyo anigoo Xuseen oo togdheer oo taraxa marka koowaad inaan la arag qof bilaa kaadha oo reer Balcigaala waa qodobka koowaad qodobka labaad raacayna waxa weeye mudnaanta koowaad waxa iska leeynu siinaynaa gobolka magaceenu ka soo jeedo ee saaxil haraaga wixii kici kari waaya ayaana looga tagayaa wixii kici kari waaya haddaad adigoo kaadh hore qaadatay oo hore lagu sawiray aad isku qaada mar kale kii horena waad qasaariso uu ka gubti kii dambena uu ka gubti maanta waxa la siinayaa qofkii waqtiga ilmo yar ahaa ee aan sawir gelin ee qaan gaaray qofkii ariga raacay ama meel kale ku maqnaa ama Itoobiyadan deemka dhinaca ku haynaba ku maqnaa ee haleeli waaye aan qaadan iyo qofkii isiri saaxiibkaayo meel ka sharaxan laba jeer ugu rido laba jeer qaatay oo qodobka loo arkayo inuu dambiile yahay qofkaas dadka maanta loo furayaa ee 4 cisho loo furayaa waa dadka marka bulshada laan mulaaxo waxa aan leeyahay dadka la furay ee kaadhka qaadanaya waa 4 cisho u dadaala guud ahaan qof walba qofku jecel yahay buu codeynaya ama berberaha ka sharaxnaado ama togdheer ha ka sharaxnaado laakiin hubkiinu ha noqdo inaad kaadhka qaadataan taasaan idinku dardaarmaya horta muhiimadda u socona waa diiwaangelinta iyo kaadhka oo la qaato kaadhka la qaadanaya marka koowaad waxa weeyaan kaadhkii gobolka saaxil inaynu wixii tagi karayna aynu xoojinteeda mar labaad u diyaar garoono oo aynu berbera tagno waxaan fariinta aynu faraynaa ay tahay jaanis waxaan sanaa 4 cisho oo diiwaangelin guud ah waxa inta ka reeban cidii kaadh hore u qaadatay ee kaadhkeedu halaabay maanta iskuma day doonto inay mar labaad kaadh dooranto kaadhkoodu wuu dambeeyaa oo naga lumay oran doonaan laakiin 4 cisho kadib bay noqon doontaa muhiimadaan u soconay safarka iyaga ujeedadeedu waxay tahay wacyigelinta iyo ogeysiiska kaarkuna waa kaarkii doorashada waa kii aad hore u qaadateen oo imika la doonayo in ay laba qof ka faa'iideystaan qof aan hore u qaadanin iyo qofkii qaan gaadhay intii ka dambeysay kaarka intaa waxa soo raaca kii laba jeer galay kaarku ka gubtay marka insha Allah taala waqtiga kooban awadeed waxaanu dadka ku boorinaynaa ugu celinaynaa u sheegaynaa inay kaarka qaataan muhiimadana saaraan anagu waxaan nahay wafdi oo chief caaqil hogaaminayo halka fadhiya Saciid Maxamed Marsiga waxaanu ka soo baxnay magaalada Hargeysa waxaan ugu kalifay inaan soo baxno dadkii magaalada joogay dadka miyiga daayo markayna weydiinay yiraahdeen kaygii kaarka hore haystay kaarka kale miyaan qaadanaya ama kaarka kale qaadanaya macna ninka kaar haysta waxa weeye hadduu kaar qaato kaarkiisu gubanaya markaan arinta aragnay waxaanu ka maarmi weyneen aan dadkii wacyi gelino u baxno u sheegno nidaamka hadda taagan iyo waxa dambeeya sida ay kala yihiin waxaan idin sheegaynaa imaka waxa saddex qof uun baa wax qaadanaya wixii kale way inoo dambeeyaan marka dambe iska waraysanaa haddii iska keen dhex qaadan waa lagu asqoobaya in imaka la fahmo inaynu qaadanayno kaarka qofka qaangaaray qofkii qaangaaray bariga hore la diiday oo 6 sanadood baa ka soo wareegay kaas wuu qaadanaya ninkii ama xanuunsanaya ama meel kale ku maqnaa ama ariga la joogana wuu qaadanaya kaar qaadan ninkii si laba jeer gal halkana ka galna wuu qaadanaya uu ka gubtay saddexdaas ay inoo joogtaa kii kaarka bedelanaya
iyo kii warqad intuu kaarka galay warqadii oo qura haystay ee aan kaarka laftiisii qaadan iyo intaas way inoo dambeeyeen iyagu gadaal baynu isaga sheegi doonaa afartaa cisho waa dadka ugu horeeya ee gelaya aan haru aragba wax meel tegin amba ha yaraado amba marka hore ha yaraado amba yuu qaadanin kaarka amba ha buko dadka aan gelin uun baa gelaya kii qaataa ee isiraado waadiga waraaqadii hore qaatay mid kale qaado uu ka gubinaya kii markii hore uu ka gubtay ee labada meelood ka galay imika uu geli karaa inta ayaa la ilaawi inta qure meesha aan ugu soo marayni waa wacyigelinun hal ujeedoon baan kulli u soo wada soconaa anigii dhammaan odayaasha iyo xildhibaanada meeshan isugu yimid halka ujeedo waxa weeye war meesha waxa lagu kala tagay waa codka cidii isdiiwaan gelin weyda cid la tartami mayso waxaan u baahanahay in codka si mugla loo qaato waxa la idin wacyi gelinayaa in kaararkiina doonataan kaarku siyaabo badan buu idin anfacaya sidii la idinka sheekeynayay si ka duwan oo shakhsi ahaana sida iskuulada cusbitaalada meel aad tagay damaanadaha waxaasoo dhan u anfacaya marka doorashada laga reebo wixii socon waaya ama xoolaha ku hadheen ama aaggaha ku hadheen xildhibaan togleer inooga sharaxan ayaa jooga isaga laftiisa haddaad eegto tuuladan iyo annagu de berbere waxba idin soo gaarsiina waa ninkii wax idin soo gaarsiinayey waa ninkii oodweyne iyo xukumayey ee odhanayay waxaase tuuladaa ka dhiman ee ha loo sameeyo waa ina loo kacaa wixii soo baxa mooye wixiina kale waa ina u kacdaan iswada gaarsiisaan dadweynahan magaalada Laanmulaaxo safarka iyagu waa wacyigelin guud weeye waxa bilaabantay diiwaangelin la diiwaangelinayo dadkii maxay ahaydey intii diiwaangelintii hore ka dambaysay qaan gaadhay iyo wixii tii hore aan kaadh qaadanba arrinta muhiimadeeda aan u soconaa waa taa saddexda goboltaanu ku wacyigelinaynaa waa taa sidaa la idiin sheegay waxaanu wadaa wacyigelin kaadh qaadasho ah kaadhkaasu siyaabo badan buu idiin anfacayaa wuxuu idiin anfacayaa horta marka hore bahashaa lagu kala badiyey cid kastaba ha joogtay bahashaa lagu kala badiyey madaxweynenimada waa lagu hadhow waa rasaastii lagu ridayey taas waa taa oo mar wuxuu ku anfacayaa madaxweynenimada ayaad ku dooranaysaa marna baarlamaankaad ku dooranaysaa marna deegaankaad ku dooranaysaa arrinta wacyigelintu waxa weeyaan kaarka qaata waxa idin imanaya komishinkii ee kaarka qaata weeyaan wacyigelinta gebigeedu hadalka muhiimkiisu waxa weeye kaarkaas wax badan buu ka dawan yahay qodob qura iyo laba qura san midna kaba dawaa wuxuu hambaarsan yahay wax badan shaqada ku xirmi doonta qofka cadayntiisa ku xirmi doona dhakhtarka ku xirmi doona tacliinta ku xirmi doonta kaarkaas wax badan hawlo badan buu hambaarsan yahay sida awgeed waxaan u leenahay walaalayaal kaarka la qaato guud ahaan cid kastoo halkan joogta beel kastoo joogta dadka waa la wadayaal beel kastoo joogta halkay ka diiwaan galayso ay ka foodinayso waa ogtay laakiin kaarka in la qaato waa muhiim waxaynu yeelaynaa kaarka waynu qaadanaynaa waa wacyigelin reer Soomaaliland qoladani qof kastoo reer Soomaaliland kaarka ha qaata bayna yiraahdeen soo ma aqbalo waxa jira oo kale kaarkii hore ma haysano waynu isagni bal baarbaro qof aqalka hoostiisa ka hela iyo qof xerada ariga agteeda ka hela iyo mid waayaan u qaybsano kii waayaanaha u diyaar garooba degmooyinka taasina tacaynkaas weeye sidaa maantana aad noo sheegteen wax alla uu dhimo maahan aad baan xilka saari doonaa insha Allah taala haday tahay berbera iyo haday tahay burco mid walba si alla u idmaba aad baan xilka saari doonaa insha Allah